labadaa maxay ku dhamaadeen loss bay ku dhamaadeen okay losska ee labadaas ku dhamaaday trade-kaas anaga waxaa u naqaanaa trade-kaas inuu loss ku dhamaaday intaan islahaynaa fiiri trade koowaad baan galnay mid labaad baa la galay labadiiba sell bay ku dhamaadeen candle-ka maxaa loo yaqaanaa waa candle sell candle-kaana waa sell okay labadoodii fiiri halkaa maad aragtaa aan u fiirsano habeenkii waa dadka halkaas ee wax soo dhigmayaan aragno fiiri candle weliba markaad saa ugu aadiso fiiri candle weliba markaad ku aadiso maxaa kuu soo baxaya fiiri time baa kuu soo baxay ma aragtaa candlekaas socdo waa 20 iyo 21 kan fiiri hore dhamaada waa 20 kan hore sii dhamaada waa 20 marka fiiri hadduu qof kuu soo qoro ku yiraahdo candlekaasi baa ku dhamaaday buy beenta baa oranaysaa fiiri candlekaana fiiri sell buu ku dhamaaday kanna sell buu ku dhamaaday okay aan tusaale qaadano waxaan tusaale ku qaadinaa qolada damaata VIP signaliska aan ku qaadano kuwa dambeeyay oo soo baxay oo ah AUD cat buy waliba xataa de martingal aan waa lagu dhaay waa 17 iyo 40 okay qaabkee loo baaraa marka okay waxa leedahay AUD cat buy inta waxa si sharxeynaa maadaama oo waqtiga 5:20 markuu ku dhacdo ayaa rabnaa inaan 5 minutes ka sharaxno okay erase okay halka marka candle-ka aad tijaabinaysid waa ma 5 minutes mise waa 1 minute haddoo 5 minutes 5 minutes ka geysanaysaa okay trade-ki maxaa soo dhahan anaga maxaa soo dhahan waa 17 iyo 40 okay 17 iyo 40 mirir dib baad u celinaysaa marka waad iska yareynaysaa zoomta baalka yar dib baad u celinaysaa 17 iyo 40 okay 17 ma aragtaa hadda